kulanti waxaan daawadayaalkuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya caalamka ee warbaahinta ogaal qodobada wararkeena subaxnimo ee warbaahinta ogaalna waxaa ka mid noqon doona magacyada iyo qabiilada u kala dhasheen ciidamadii lagu dilay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya Soomaalida ahaa ee tababarka lagu qaaday dalka Eritrea ayaan barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa mas'uuliyiin caan ahna waxaa lagu dilay qarax ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho Generaal Oduwa taliyaha ciidamada xoogga dalka oo xilka ka qaaday taliye sare iyo waliba weerar khasaare geystay oo ka dhacay mar kale magaalada Kismaayo qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo xiiso leh ayaan daawadaal ku soo qaadanaynaa wararkeena subaxnimo ee warbaahinta ogaal haddii aad ka mid tahay daawade saaxiibada nagu cusub waxaanu ka codsanaynaa inaad warbixinta iyo waliba wararkeena la sii wadaagtid asxaabtaada kale haddii aanu daawadal wararkeena subaxnimo ku bilowna waxaa la soo saaray ama la soo bandhigay warbaahinta qaarna ay soo heleen magacyada saraakiishii ciidamada ahayd ee lagu xasuuqay dagaalkii ka dhacay dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray ee la dagaalamayay kooxda TPLF-ta ciidamadan oo ahaa kuwa tababar loogu qaaday dalka Eritrea ayaa waxaa soo baxayay maalmihii la soo dhaafay warar sheegay in ciidamadaasi loo adeegsaday dagaalkii ka dhacay gobolkaasi Tigray isla markaasna Eritrea ay u dirtay halkaasi waxaana la soo helay liis ka kooban ilaa 50 magacyo askari oo la sheegay in ay ku noof waayeen dagaalkaas iyadoona la soo bandhigay magacyadooda iyo waliba sidoo kale qabiilada ay kala dhasheen Soomaali ahaan waxaana magacyada la soo bandhigay ku kala jira ama kamid ah haddii aanu si kooban u soo koobno Xasan Cabdullaahi Maxamed Gorod oo loo yaqaano inuu yahay qabiil ahaantiisa reer Jalaf Sacad Habargidir Xasan Saciid Nuur Cirfo oo ku magac dheeraa Dhuuho uu qabiilkiisu yahay sidoo la sheegay Sacad Habargidir Liibaan Guhaad Sheekh Ibraahim qabiilkiisu lagu sheegay inuu yahay Qudub Sheekhaal Diyaar Xasan Nuur Xuseen Haaruun oo qabiilkiisu isagana lagu sheegay Sacad Habargidir Cabdullaahi Maxamed Aadan Gayre qabiilkiisu lagu sheegay Gandarshe Sheekhaal Maxamed Salaad Maxamed Cabdi oo isagana qabiilkiisa lagu sheegay inuu yahay Ceer Habargidir Mustafa Axmed Wardheere oo isagana qabiilkiisu lagu sheegay Ceer Habargidir Asid Iimaan Maadi qabiilkiisu isagana waxaa lagu sheegay inuu yahay Habar Caro Biimaal Dir Faysal Maxamed oo isagana ku magac dheeraa Faysal Lagacad qabiilkiisa ayaa lagu sheegay inuu yahay Saleebaan Habargidir waxaana la sheegaya sidoo kale waa liis ilaa 50 magacyo gaaraya anakoona sidoo kale soo qaadan doona magacyada qaybaha dambe wararkeena dambe maanta qaybaha haray ama magacyada liiskanta ka haray warar kala duwan ayaa ka soo baxay khasaaraha ka dhashay qarax miino maanta mas'uuliyiin ka tirsan maamulka deegaanka Garisbaale lagula eegtay duleedka magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya qaraxan oo mid xoogan ayaa waxaa lagu eegtay gaaray la socday mas'uuliyiintaas waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ayaana sheegay in qaraxan lagu dilay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka Garisbaale Cali Maxamed Macalin gudoomiyaha dhalinyarada deegaankaasi Cabdirashiid Dubad iyo laba kamid ah ilaalada maamulkaasi Dubad ayaa sidoo kale hor waa wariye caan oo ka howlgali jiray gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya sidoo kalena waxaa lagu soo waramayaa inay jiraan dhaawacyo kale oo soo gaaray dad shacab oo ka agdhawaa meesha uu qaraxa ka dhacay ciidan ka tirsan ammaanka iyo maamulka deegaanka Garisbaale ayaa sidoo kale gaaray goobta kuwaas oo meydka marxuumka ka qaaday halkaasi inta badan qaraxyada nooca meelada ayaa ka dhacay duleedka caasimadda gaar ahaan wadada xiriirsan labada magaalada Muqdisho iyo Afgoy iyadoona tani ay sidoo kale maalmihii ugu dambeysay midda soo tiray isla markaasna khasaare xoogan oo ka dhalanayay arrintan ayaa noocay saameyn xoogan ku yeelatay mas'uuliyiinta ka kala shaqeeyay inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgoy kuwaas oo inta badan la eegto qaraxyada miinada ee dhulka dhinaciisa lagu aaso taasoo noqotay maalmihii ugu dambeysay mid dad badan oo saraakiil ugu jira ay galaafatay noloshooda dhanka kalena taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Oduwa Yuusuf Raga ayaa xilka ka qaaday taliyihii guutada 10aad ee qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Generaal Maxamed Cali Cadow oo loo yaqaano Sanka dekreta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Oduwa ayaa xilkaas loogu magacaabay Korneyl Cabdirashiid Saciid Cabdi Gooje oo muddo dheer ku soo jiray arrimaha ciidanka korintan xilka laga qaaday Generaal Maxamed Cali Cadow ayaa looga yaray magaalada Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay buu ku sugnaa ujeedada xilka looga qaaday waxay ka dambeysay kadib markii lagu soo eedeeyay inuu ku lug leeshay musuqmaasuq lagu eedeeyay maamulka gobolka Gedo ee dowladda federaalka Soomaaliya taabacsan saraakiisha kale ee musuqmaasuqa lala xiranaya waxaa kamid ah taliyaha ciidanka xasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke ma caddayn musuqmaasuqaas lagu helay waliba in kale tani waxaa ku soo aadaysaa xilli khamiistii xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyihii gobolka Gedo
ee dowladda federaalka ismaa nuur xaaji maclimow oo lagu eedeeyey wada shaqayn la-aan iyo cabasho ay ka soo gudbiyeen dadka deegaanka. warqaduu soo saaray wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen oo haatan ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalk ugu wakiilka gobolka gedo ayaa axmed buule garaad loogu magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee gobolkaasi ee gedo. weerar khasaare dhashay ayaa waxa uu ka dhacay isla magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland. faahfaahiino dheeraada ayaana kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkan oo xalay ka dhacay gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbadaas kaasoo geystay khasaare dhaawaca. weerarka ayaana loo beegsaday bamgacmeed waxaana lagu qaaday goob maqaaxi oo ku taala xaafadda dalxiiska ee magaaladaas. inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay ugu yaraan 5 qof oo shacaba kuwaasoo ka mid ahaa dadkii ku caweynayay goobta la weeraray. sidoo kalena waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka iyo dowladda goboleedka jubbaland kuwaasoo baaritaano kooban ka sameeyey halkaasi. ilaa hadda ma jiro wax faahfaahin oo saraakiisha laamaha ammaanka maamulkaasi ay ka bixiyeen weerarkan iyo weliba howlgallada xigay. muddooyinkii ugu dambeysayba waxaa kismaayo kusoo badanayay falalka lidka ku amniga gaar ahaan weerarada loo adeegsanayo bamgacmeedka ka dhacaya gudaha magaaladaasi kismaayo. kismaayo ayaana waxaa maalmihii ugu dambeysayba hay'adda amnigeeda meeda ay aada soo tarayaan xiisadaha dhanka ah dilalka qorshaysan iyo weerarada bamgacmeedka ah ee loo adeegsanayo dadka qaar ee aadka loogu u dhow dowladda. ugu dambeynna daawadayaal kombyuutarka laga xaday Nancy Pelosi miyaa laga iibiyey sida la sheegay dalka Ruushka kaasoo la sheegay in in ay soo heleen baa la jiray sirar badan oo ku aadan baa jiray waxyaabo badan oo ah dhanka Congress-ka ee dalka Mareykanka. eedantan kananka ah Riley John Williams waxaa maxkamadda u gudbiyey sargaal ka tirsan FBI-da waxaana la sheegay in Williams lagu arkay telefishinka iyadoo hagaysa dadkii weeraray dhismaha Capitol 6 January. sargaalka FBI ayaana sheegay in Williams ay muuqato inay tahay qof baxsada isla markaasna aysan rabin. Williams waxay ka mid tahay bal in ka badan 200 oo qof oo kiisaskooda la furay tan iyo wixii ka dambeeyay markii taageerayaasha madaxweyne Trump ay xoog ku galeen dhismaha Capitol Hill. xilligaas oo Congress-ku ka yeelanaya xaqiijinta in Joe Biden uu ku guuleystay doorashada. ammaanka ayaa aad loo adkeeyay hadda iyadoo maalinta beri ay dhici doonto caleemasaarka Joe Biden waxaana laga cabsi qabaa in weerar dheeraada ay geystaan kooxda midigta fog iyo kuwa kale oo rumaysan sheegashada madaxweyne Trump ah in doorashada lagu shubto. sargaalka FBI-da maxkamadda ka dhaartay ayaa sheegay in arrintaasi uu soo sheegay nin uu xiriir hore kala dhexeeyay Mrs Williams oo la sheegay in ay doonaysay laptop ay ka xadda xafiiska Mrs Pelosi afayeenka dimuqraadiyiinta ee aqalka wakiilada u gudbiyay qof jooga Ruushka. waxaa la sheegay in Williams ay doonaysay in kombiyuutarka ay u dhiibto qof ay saaxiibo yihiin oo ku sugan Ruushka kaasoo kadib qorsheyn lahaa inuu qalabka ka iibiyo SVR oo ah waaxda sirdoonka arrimaha dibadda ee Ruushka. arrintani waxaa hadda ay ku socotaa baaritaan iyadoona ilaa hadda aan la kala cadeynin in arrinta ay tahay mid sax iyo weliba in kale. intaas ayaan dawda kusoo gabagabeynaa warkeena tan kulan dambe nabadgelyo.